Isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo saaxiibkiisa Imaaraadka ee la dagaalamaya falagada Xuutiyiinta ee Yemen ayaa lagu soo waramayaa inay duqeymo dhanka cirka ka fuliyeen qaybo ka mid ah caasimadda Sanca ee dalkaasi Yemen saacado kadib markii qaraxyo iyo weeraro lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee ugu weyn ee magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi halkaasi oo ay ku naf waayeen ugu yaraan 26 ruux. Isbahaysiga ayaa weerarkani qaaday habeennimadii xalay iyadoo la beegsaday laba goobood oo sida la sheegay ay Sanca kaga sugan yihiin kooxda Xuutiyiinta ee falagada sida uu baahiyay telefishinka ku hadla codka Xuutiyiinta ee Al Masra. Geesta kale war ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Dr. Yuusuf bin Axmed ayaa lagu cambaareeyay weerarkii qaraxa ahaa ee shalay toolo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Cadan ee dalka Yemen. Xogayaha ayaa ugu baaqay dowladda iyo shacabka dalka Yemen inaanay ka niyad jabin dib u dhiska dalkooda iyo xoojinta amniga. Xogayaha ayaa intaasi ku daray inay garab taagan yihiin dowladda Yemen kana caawin doonaan wax kasta oo ay u baahan tahay si dalkaasi dib loogu soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii. Weerarka shalay lagu qaaday gegada diyaaradaha ee Cadan ayaa sidaan horeba u sheegnay waxa ku geeriyooday ugu yaraan 26 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 100 ruux. Weerarkani ayaa dhacay xilli dowladda cusub ee dalka Yemen xubno ka mid ah ay ka soo laabanayeen dalka Sacuudiga. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Yemen oo hadlay weerarka kadib ayaa sheegay in isaga iyo golihiisa wasiiraduba ay bad qabaan oo aanay wax dhibaato soo gaadhin. Weerarkani ayaa la sheegay inay fuliyeen kooxda falagada ee Xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen.